Bismillahirrahmanirrahiim. Asxaabta aynu jecelnahay oo ku soo dhawaada channelkeena ka xiroo faqriga hadduu eebbaweyne idma maanta waxaan idiin soo gudbin doonaa barnaamij ku saabsan sidee lacag loo helaa ama aad ku sameyn kartaa lacag. Lacagta waxaad ku heli kartaa siyaabo badan ka hor inta aadan helin lacagta. Waxaa lagaaga baahan yahay in aad marto wadada aad ku heli lahayd lacag iyada oo waafaqsan sharciga islaamka iyo diinteena. Waa ay fududahay in aad lacag hesho, balse qaabka aad ku heli lahayd ayaa kala duwan. Marka aad caruur tahay, way fududahay inaad hesho, waayo waxaad ka heli kartaa waalidiintaada iyo ehladaada. Waqtiga aad lacag heli kartid marka aad caruur tahay waxaa ka mid ah xilliyada xafladaha, xilliyada ciida iyo waqtiga oo idin soo wajahayaan mase idin soo marti qaadayaan marti. Marka waxaa lagaaga baahan yahay inta aad yar tahay inaad barato sida lacag loo helo oo aad ku shaqaysan karto ma aha in aad sugto gacan qof uu leeyahay. Way fududahay in aad lacag hesho marka aad tahay caruur sida ay ugu adag tahay marka aad weynaato. Halka maanta hadduu eebbe idmo waxaan kaga hadli doonaa sida ay ku heli karto lacag marka aad yar tahay iyo marka aad weyn tahayba. Hadduu eebbaweyne idmo waxaan soo qaadan doonaa 4 qodobood, 2 qodobna ay iska agdhow yihiin hadduu eebbe idmo insha Allah. 4 qayb ee aad ku heli karto lacag waxaa ka mid ah 1 in ay waalidkaaga ku siiyaan, 2 in aad gifti ahaan u heshid mase hadiye ahaan lagugu keeno, 3 in ay shaqo aad qabatid kadibna aad hesho lacagta lagugu abaalmariyo, 4 ama in aad adeeg fulisid oo meel aad geysid mase meel aad ka soo qaadid sidaas awgeed aad ku hesho lacag. Hadduu eebbaweyne idmo insha Allah waxaan soo qaadan doonaa qaybka koowaad oo ah in aad lacagta aad ku heshid in ay waalidkaaga ku siiyaan. Adigoo inta badani lacagta waxaa la siiyaa caruurta taa oo ay siiyaan waalidiintooda siyaabo kala duwan baha u siiyaane. Cunuga yar markii lacag la siinayo waxaa lagu dhiirigeliyaa in uu shaqo qabtay, shaqadaas awgeed loogu dhiirigeliyo oo lagu siiyo. Hadda camal waxaad sameysay waalidkaaga ayaa caawisay oo waxaad ku caawisay in aad guriga kala shaqayso. Beddelkeeda waxay ku siinayaan waalidkaaga lacag ama wax aad ku faraxdo. That's why lacagta waalidkay ku siiyaan iyo meesha kaga jirtaa. Mararka qaar waxay lacagta u siiyaan caruurtooda si billa ah mase si isbuuclo ah. Midda labaad, qaybta labaad waxaan kaga hadli doonaa hadiyad ahaan in lagu siiyo lacagta. Markii aad ku helaysid hadiye ahaan lacagta way kala duwan tahay. Sida aniga haddii aan muslim nahay waxay lacagta ku helaan caruurta dhanka caruurta markii la joogo, dhanka iyo ciidaha, xafladaha, dhalasho iyo markii ay soo martiyaan ehelada. Isla sidoo kale dadku waaweyn waxay lacag ku helaan markii ay sameeyaan, balse hadda anaga xooga waxaan saareynaa labada qaybood ee hore caruurta sababtoo ah giftiga qof weyn waa la siiyaa, cunug yarna waa la siiyaa, balse hadda anaga waxaan xooga saareynaa caruurta. Waayo markii aad lacag siiso mase aad beddel markuu wax uu ku qabto wax aad siiso waxay dhiirigelinay maskaxdiisa oo wuxuu active u yeelanaa in uu waxan qabto. Shaqada aad ku heli kartid lacag, shaqooyinka way kala duwan yihiin. Inta badani dadka way soo wada kacaan, shaqooyin way soo aadaan, balse waxaa kala duwan shaqooyinka ay qabanayaan. Waxaa jira shaqooyin caafimaad, waxaa jira shaqooyin beeraley, waxaa jira shaqooyin nadaafadeed, way kala duwan yihiin shaqooyinka. Balse lacagta ay helayaan hataa way kala duwan way kala sareeyaan qiimo ahaan. Sidoo kale waxaa jiro shaqooyin ganacsi. Inta badanna shaqooyinka ganacsiga way kala duwan yihiin oo waxaa jira ganacsi yar iyo ganacsi weyn. Ganacsiyada yaryar waxaa ka mid ah sida dukaamaha waxyaabaha yaryar lagu gado, ninaca iyo waxyaabaha mamacaanka.
Ganacsiyada waaweynna waxaa ka mid ah sida kambaniyaasha, sida dukaamada lagu daro dharka, alaabta, kuwaasaa ka mid ah. Wayna kala duwan yihiin qarashaadka laga kala helayo. 4. Lacagta aad ka hesho adeeg. Adeega wuu kala duwan yahay. Waxaa jiro adeeg xafiiseed iyo adeeg guri. Lacagta waxaa lagu helaa sida in aad guri geyso alaab mase xafiis aad geyso. Inta badan dadkeena way kala duwan tahay sida ay lacagta ay u shaqeeyaan oo way kala culeys badan tahay. Marka inta aad noqon lahayd tuugsade, noqo mid shaqaysta dhididkiisana cuna, haba kuu adkaatee. Haddaba daawade, adiga sidee ayaad ku heshaa lacagta aad isticmaasho? Inoogu reeb dhanka commentiga. Hanaga hilmaamin sheerta, commentiga iyo subscribe-ka waxay inoo tahay dhiirigelin insha Allah.